sidoo lugeel oo muddo 3 bilood kadib social media dib ugu soo laabtay. Another one Tita Cadde. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hero is back. Kusoo dhawaada Tita Cadde channel. Meel walba aad dunida ka joogtaan si walba oo muuqaalkayga idin soo gaari doono. Waxaan idin leeyahay waqtigii waayaha idin wacnadood ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyadeeda. Haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkana ma ay ku tahay booqashadaadii koowaad, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo channelka gambareelkeer kaa furato, videogana like saarto aad iyo aad oo mahadsan tahay. Intaasoo dhanna ma ahan wax lacaga, waa free, waa bilaash, sida caadadii dhaqanka aydna kusoo dhawaada muuqaal cusub. Inta aan muuqaalka u gudagelin, waxaa idinka codsanayaa dhammaan asxaabta ku xiran YouTube channelkeyga ee Tita Cadde channel in aad booqataan oo subscribe saartaan oo kor u qaadaan oo aad u kala kicisaan channelka Dhanaane Media. Dhanaane Media oo uu leeyahay saaxiibkay walaalkay Xanafi Xaaji Maxamuud. Si hagar la'aan ah inaad u garab qabataan ayaa idinka codsanayaa oo aad booqataan. Wuu idinka mudan yahay. Waa muwaadin Soomaaliyeed social media rabo in uu lacag ka sameeyo sida kuwa hore u caawiseen, sida aniga iyo caawiseen. asigana wuu idinkaga mudan yahay oo xaq buu u leeyahay. Waa muwaadin. booqda Dhanaane Media Group ama Dhanaane Media. Subscribe ka dhac ku siiya, share-ta la dhaafina, like-tana idinka le waaye. Sida caadadeedna kusoo dhawaada muuqaal cusub. waxaa mar kale social media YouTube ka soo muuqday sidoo lugeel oo muddo 3 bilood ku dhawaad ka maqnaa baraha bulshada ay ku xiriirto haddii naqan lahayd YouTube, Facebook iyo waxyaalo kale. sidoo lugeel ayaa markii social media laga waayay waxaa arrinkiisii ka gaabsaday oo dhammaanba dadamiyey Durdur Media uu ka ahaa shaqaale ka mid ah ama xubin ka mid ah Durdur Media. Durdur Media iyo Xasan Toob hoos ayay u dhigeen barnaamijka sidoo lugeel, kama aysan hadlin inuu channelka ka tagay, xaaladdu uu ku maqan yahay, meesha uu aaday, dhammaan way laalaabeen, way qariyeen. laakiin channelo badan ayaa ka hadlay oo uu channelka shalay uu kasoo muuqday uu ka mid yahay Manson, sheegayna in sidoo lugeel loo dhaadhiciyey xabsiyada magaalada Muqdisho mid ka mid ah, asigoo lagu eedeeyey urur xag jir ah oo kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. arrinkaa kadib channelo badan ayaa fiidiyoyadaas qaatay oo qofba waxbuu ku sameeyey, qofba si uu soo dhigay. walow anigu markaasi aanan naftirkeyga ka hadlin arrinkaasi arrimo jira awgood. laakiin hadda markii uu sidoo lugeel soo laabtay ayaa dhammaan wuxuu dafiray barnaamijyadii social media la isla dhex marayay ee ahayd in sidoo lugeel uu u xiran yahay dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo lugeel ayaa sheegay arrinkaa in uusan waxba ka jirin, ee tahay wax la abaabushay, lagu raadinayay xoogaa lacag ah iyo views ayaa lagu raadinayay oo yiri laakiin anigu ma xirneen, waxaan ahay free village tan lugeena oo yiri Xamarweyne oo aad wada taqaanaan. qof xor ahayn Xamarweyne ma lugeena. runtaa waaye, qof hadduu xor ahayn Xamarweyne ma lugeena. laakiin goormee lugeeyoosaa? Xamarweyne waxaad lugeynoosaa shalay 3 bilood ka hor intee jirtay social media markii la isla dhex marayay. yaa ilaan waxaa la yiri fulay xantiis ma moogo. markii social media la isla dhex marayay sidoo lugeel waa la jajabsaday, sidoo lugeel waa la laqay. maxaa u soo hadli weysa haddii aad tahay qof nool oo xor ah oo xiriir samayn kara? waxaad haysay YouTube ley Soomaaliyeed oo badan lambaradooda, maxaad u soo wici weysa oo dhihi weysay anigu waxaan ku maqanayaa xaaladaas, waxa social media ka socda waa been abuur, waxba kama jiraan, waa leenabooya, maxaa u dhihi weysa? laakiin waxaa hadda ka hor maqli jiri shirib marxuum meel maamule heblow hebel meel ku sheega, marxuum meel maamule heblow hebel meel ku sheega. hadda marka waxay ahayd marka nin xor ah, yaa nin xor ah ma la waaye sidoo lugeel meel ku sheegay ahayd. hadda laakiin waxaad sheegtay sidoo lugeel wuxuu yiri arrimo family ama dhibaato family ayaan social media ugu maqnaa. wuxuu yiri waa laysoo rabaayadeynay, hayinaa leega dhigay. hayin mataqaaniin? hayin waxaa la yidhahdaa ratiga la rarto oo macnaha rati kasta layskama raran karo, oo qof rati oo duurka iskaga jiriyo iska daaqaaya inta lasoo wada ma la rari karo.
ratigaan hayin ahayn aqalkuu ridaayo rarka lama dul saare marka rarka haddii uu hayin ahayn rar lama dul saaro wuu fiigaa oo rarka dhan wuu daadina laakiin ratiga asigoo yaroo qurbac yar ah ayaa la baraa hayinnimada sida rarka loo saaro sida hoggaanka loogu qabto sida ceelka loo geeyo sida hoolaha loogu samaysto sidaasaa loo baraa marka Sidoo Lugal ayaa wuxuu sheegay in islaantiisa ay ka shakisayoo ay hayin inuu u noqdo awgeed guriga ku celisay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay qof Soomaali ah miyaa 3 bilood oo dhan guri iska dhex fadhinaya taas waa waxa aqliga qof kasta oo Soomaaliyeed uusan aqbalaynin Sidoo Lugal waxa rabtid inaad naga dhaadhicisid waxa ka fiicneed meeshan ku maqnaay yaa meel la sheegi karo ma aha waa ka gaabsanaa inaa iska dhahdid aa ku dhaantay laakiin inaana dhahdid gurigeygaan joogay markii waxaan la soo dhigayay dhowr mar on social media arkay waa arkayay islaanteedii walaalkeygii iyo kaalihii barnaamijkan ila arka maaniga mise Sidoo Lugalyaal badanaa jiro maya marka taas ma soconayso durdurmeedii naftirkood way ka gaabsatay waxay ugu gaabsatay ayagaa yaqaano meeshaas wixii loogu gaabsaday arrinkaas in loo faahfaahiyo ayagaa yaqaano mas-uulkii durdurmeedii beedhawo ku maqan yahay weli ma cadda sida dhabtaa oo beedhawo uu ku joogo durdurmeedii naftirkeeda xaaladeeda cirka ayay ku jirtaa oo hadda waxay tahay fadhi ku dirir waxaa lagala laabtay kalsoonidii xayeysiinta janalka wax lacaga ma sameynaya hadda Sidoo Lugalna laba qooley oo qunfacayso Turkiga joogta ayuu sheegay laakiin labadaas qooley oo qunfacayso Turkiga joogta aniga wili ma fahmin laakiin in aan fahmo ayaan isku dayi doonaa baaris ayaan sameyn doonaa laakiin Sidoo Lugal social media waa laga tabay waana laga xiisay mar kale welcome ayaan ku leeyahay ku soo dhaw social media oo aad horay ugu tirsaneed laakiin sababta loo kala cadeyn waayay in Sidoo Lugal uu durdurmeedii ka tagay maxaa keenay Sidoo Lugal haddii uu social media dib ugu soo laabtay in durbo uu ka soo muuqdo maansan muxuu uu aadi waayay janalkii lagu yaqaanay ee uu ka mid ahaa shaqaalihii janalka ama xibin ka tirsan durdurmeedii waxaasoo dhan marka la isu soo duuduubo waxaa meesha ka soo baxaysa Sidoo Lugal inuusan ahayn qof xoriyadiisa haysta uu ahaa qof meel lagu haayo ciddii doontaba ha hayso siyaabihii doonaba ha loo haayo den ha loo haysto barnaamij kale ha loo haysto abadhac ka dhasha ha loo haysto hoolihiisi kale ha loo haysto laakiin waxaa cad haddii aan falanqeynay fiirinay tafatirnay in Sidoo Lugal uu ahaa xabsi 3 bilood gaaraya laakiin hadda waxaas lama faahfaahinayo sababtoo ah qofka waxa laga yaabaa arrimihiisa xaaladda amni howlo kale barnaamijyo kale wadanka waxa waaye qalaf waaye laskama hadli karo waxa waaye ama afkaaga hayso ama hablo raac ama afgooya aad ama beedhawe aad ama janaale aad ee maroosa marka Sidoo Lugal welcome with open hands social media waa taqaanaa habdhaqankiisana waa taqaanaa wax badan ayaad soo shaqeysay qof takhasus ku filan social media iyo hababka loogu shaqeeyo iyo kirbaashka been abuurka waxaasoo dhan qaabka loo sameeyo waa taqaanaa ilaan adigaa hore u yiri maanta heshiisaa duubeenaa berine dagaalan duubeenaa ilaan burjiko in la shitaa la rabaa tiri adigaa hore u sheegay marka burjikadan waa la isku shidanaa abuu maraa lagugu shito iyo maraa adigu wax ku shidata le waaye dhaqanka social media lagu joogo ayaa saas ah maanta igu shido beriyaan kugu shidinaa aljazaa'u alixsaan ila alixsaan le maroosaa sansan ku gud saxan ku gud fiyus ku gud le maroosaa galow ku gud jafo ku gud marxaladda meesha tahay marka Sidoo Lugal welcome aan kuleena mar kale iyo janalka aad ka howlgali doontid kule waa arki doonaa maansa muu noqon doonaa adima Sidoo Lugal official furo doono hoosh way badan tahay ileen shaqadu way badan tahay qof walbo hooshiisa wataa marka videogan intaan ku soo gabagabeynaa
haddii aad videoan ka heshay like saar share dheh comment la wadaag asxaabtaada tan iyo kulantideena dambe waa tii tacadoo idin leh isma dhaafno see you again so long